kusoo dhawow qaybta saddexaad ee diiwaanka Mahad Podcast. Diiwaanka Mahad waa podcast aan kaga sheekeeyo kuna soo koobo qoraaladayda. Waxaan diiradda ku saaraa waayo-aragnimadeeda nolosha iyo magaalooyinka aan u safro, kuwaasoo aan inta badan kaga faaloodo blogayga. Qaybtan waxaan uga hadlayaa blog aan daabacay bishii January ee sanadkan 2025. Waxaan uga hadlay safar aan ku tagay degmada Buulaburti. Sanadka 2025 waxa uu iigu bilowday safar isbuuc ah oo aan ku tagay degmada Buulaburti. Markii iigu dambeysay aan magaalada tago waxay ahayd bishii August ee sanadkii 2023. Safarkan waxa aan raacay hooyo oo muddo bil ka badan ila joogtay Muqdisho. Waxaan ka degnay garoonka diyaaradaha ee Buulaburti 2 January. Waxaa jira hal duulimaad oo taga Buulaburti toddobaadkii oo ah maalinta Khamiista. Qaar badan oo naga mid ah waa habka kaliya oo ay door bidaan inay ku tagaan magaalada. Ma jirin soo laabasho degdeg ah maadaama ay ahayd inaan sugo ilaa Khamiista xigta, taasoo i siisay waqti aan dadka magaalada kula sheekaysto. Markii aan ka soo deganay diyaaradda waxaa safaf dheer ku jiray dad sugayay diyaaradda oo u socday Muqdisho. Muddo ku dhow 10 daqiiqo gudahood waxaa la soo buuxiyay diyaaraddii waxayna dib ugu duushay Xamar. Ciidamada Djibouti ee ka tirsan AUSOM ayaa mas'uul ka ah ammaanka garoonka diyaaradaha ee Buulaburti. Balse subax kasta, gaar ahaan maalmaha ay diyaaraduhu soo degayaan, anteenada isgaarsiinta ee magaalada waa la jaraa. Waxayna ciidamada Djibouti baaritaan ku sameeyaan garoonka si ay u xaqiijiyaan badqabka garoonka. Waxay sidoo kale baaraan oo ay hubiyaan boorsooyinka iyo waxyaabaha kale oo ay wataan rakaabka u socda Muqdisho. Haddii duulimaadku dib u dhaco, ma jiraan kuraas iyo tasiilaad ay rakaabku isticmaalaan inta ay sugayaan diyaaradda. Inteenna ku nool meelo ka baxsan magaalada waxaan ku faraxsannahay inuu jiro garoon diyaaradeed iyo duulimaad noo suuro gelinaya inaan safar ku tagi karno magaalada. Inkastoo culaysyo iyo duruufo badan ay ka jiraan magaalada Buulaburti, haddana waa magaaladayda. Waa meesha aan dareemo lahaansho. Waxaan booqday oo aan waqti la qaatay xubno ka tirsan qoyskayga, qaraabada, deriska iyo asxaabta. Hooyo ayaan ka xal wareystay deriska, kadibna waan booqday. Waxaan la kulmay walaalahay, waxaan booqday goobo muhiim ah, waxaan raadiyey oo aan la kulmay asxaab hore. Meel kasta oo aan tago waxay i xusuusinaysay waayihii wacnaa ee aan magaalada ku noolaa. Mar kasta oo aan dhaafo goobtii uu mar ku yaalay Maxadka Luqadaha ee Al-Cimra, waxaan soo xusuusanayay waayihii aan ardayga ka ahaa halkaas oo aan casharro ku qaadan jiray gudaha fasalka, sidoo kalena aan practice ku qaadan jiray bannaanka. Galab ayaan saaxiibkay Liibaan Diiriye ka codsaday inuu ii raaco oo igu sawiro albaabka Maxadka Al-Cimra ee Luqadaha hortiisa. Inta uusan sawirka qaadin ayaan weydiiyey goorta uu dhashay. Wuxuu ugu yidhi 1997. Waxaan u sheegay inaan halkan ka bilaabay barashada luqadda Ingiriiska 1998. Waxaan salaamay 3 qof oo ku casriyeynayay agagaarka. Dhammaantood waxay garanayeen aabbahay. Waxaan sidoo kale booqday madarasadaydii Quraanka Kariimka ee uu aasaasay macalinkaygii Macallin Cabdiraxmaan Maxamed Cali 14 Maarso 2019 ku geeriyooday Buulaburti. Macallin Cabdiraxmaan, Allah u naxariistee, wuxuu noloshiisa oo dhan u huray in jiilka soo koraya uu baro Quraanka Kariimka. Sanadkii 2005 haweeney Kuwaiti ah ayaa dhistay dhisme sar ah ee madarasada iyo masjidka. Xafladii furitaanka waxaan ka jeediyey muxaadaro Carabi ah. Carruurtii Macallin Cabdiraxmaan oo hadda weynaaday ayaa maamulay madarasada. Waxaan la kulmay Macallin Axmed Rashiid iyo Macallin Ibraahim oo ah 2 wiil ee uu dhalay Macallin Cabdiraxmaan oo hadda maamulay madarasada. Waxaan ka baxay dugsiga hoose dhexe ee Axmed Gurey sanadkii 2006. Xilligaas dugsigu ma lahayn dugsi sare.
waxaan booqday dugsiga oo aan la hadlay ardayda form 4 iyo form 2. markii aan tagay, maamulaha dugsiga Sheekh Maxamed Qoorlule wuxuu ku jiray fasalka form 4. xisadii ayuu joojiyey, wuxuu igu casumay inaan la hadlo ardayda. kalmad kooban ayaan siiyey. waxaan sidoo kale buuxiyey xisadda fasalka form 2. inta badan ardayda fasalkaas dhiganaysay waxay dhasheen kadib markii aan dhammeeyey dugsiga hoose. waxay ahaayeen dhalinyaro. waxaanan xusuusiyey fursadda iyo wakhtiga ay haystaan, waxaanan ku booriyey inaysan lumin. intii aan joogay magaalada, marar dhif ah ayaa la igala hadlay waxbarashada, inkastoo magaaladu ay leedahay 2 jaamacadood. Mahad Nuur Abuukar, oo ah nin uu dhalay Allaha u naxariistee Nuur Abuukar, ayaa ahaa qofka keliya ee xiiseynayay inaan waxbarashada ka sheekaysano. jaamacad ayuu qaab online ah ku dhiganayay. waxa uu leeyahay farmashiye, waana ku adkayd inuu u safro waxbarasho. qof kasta oo hami leh oo ku nool Buuloburte waxaa ku adag inuu helo waxbarasho tayo leh. ka tegistaydii magaalada waxay isiisay fursad aanay helin dhalinyaradii kale ee magaalada joogay ama kuwa hadda ku nool. waxaan ka soo tagay Buuloburte kadib 7 xusuus leh. waxaan dib isku helnay saaxiibo hore ee uu ku jiro Cabdirashiid Cumar Weheliye, oo aan isku koox kubadda cagta ahayn. waxaana fursad u helay inaan tago meelo kala duwan ee magaalada ah. dadku waxay inta badan iigu yeerayeen magacayga oo saddexan. waxaanan la soo sheekaystay dad badan oo kala duwan. duruufaha hadda ka jira magaalada ma ahan kuwo ku habboon. waxaan xitaa ku dhibtooday inaan helo kafee. si kastaba ha ahaatee, magaaladan waa midda iqaabaysay. waxaan rajaynayaa inaan degmada ku taageero si kasta oo suuragal ah. diiwaanka Mahad Podcast waxaa soo saara Mahad Waasuge. waad ku mahadsan tahay dhegaysiga qaybta 3. waa inoo mowduuc kale iyo qaybta xigta ee diiwaanka Mahad.